بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku ballansanayn inaynu soo duubno cashirkii ahaa general ledger in sida loo sameeyo waxaan hore usoo sameynay chart of accounts annagoo qaadanayna possible transactionska ka dhici kara businesskeena iyo accountada aan ku shaqaynayno ayaan dhisnay individual accounts iyo sub accounts waxaan ku xidhnay accountadaas general journal oo aanu sameynay xiisadii hore annagoo isticmaalaynay transactionska ka dhici kara businesskeena wuxuu service business ilaa 16 transaction ayaan diiwaan gelinay journalkeena waa kan waa diyaarsan yahay waxaan rabnaa haddii la yidhahdo inaan sameyno general ledger inaan ka sameyno journalkan oo haddii journalkan iyo general ledgerkaas inay isku xidhnaadaan haddii journalkan wax laga bedelo ama wax lagu daro in automatically ledgerkan lagu xidhnaado waxaad dooranaysaa journalkaada tablekaada meel ka mida kadibna waxaad tegaysaa insert kadibna waxaad sameysanaysaa pivot table rangigaada iska hubi in tablekaada uu si guud u maaragtay ilaa dhammaantii inuu ku dooran yahay iska hubi si fiican iskaga fiiri kale marka horeba wada dooro kadib wuxuu ku leeyahay ama new sheet ku samee ama existing sheet hadda inoo furan dhexdiisa ku samee new sheet ayaynu ku samaysanaynaa si general ledger cusub aynu tagno inoo sameeyey sheet uu wixii sheet 1 halkan waxaan ku qoranaynaa general ledger isla mar ahaantaana xaggan ayaan marinaynaa sababtoo ah isaga ayaa ka dambeeya general journal markii saanan kugu soo baxo pivot tablekaada waxaan rabnaa inaan samaysano isla naqaano waxa loo yaqaano formatka ama standard formatka uu leeyahay general ledger wuxuu ka koobnaan jiray date description waxa loo yaqaano account debit credit iyo balance shantaas column ay ku koobnaan jiray account-kuna wuxuu noo ahaan jiray headka account-ka date'ka uu transaction ku dhacay description-ka uu ku dhacay debit iyo credit iyo balance inta ayaan rabnaa inaan ku sameyno general ledgerkeena ku sameyno marka koowaad date baa u horeeya rows baad keenaysaa date'ka wuxuu ku sameeyey wuu gurubeeyey labada bilood ayaan hadda transactionskeena kusoo salaynay kadib waxaad sameynaysaa right click baad kordhigi waxaad tegaysaa ungroup ayaad leedahay waad arkaysaa date'kaadii si sax ayuu kugu soo bixiyey 12 bisha labaad 1 bisha iyo dhamaadka kadib haddana waxaan ku daraynaa descriptionka ayaan ku daraynaa oo asna aan geynaynaa isla rowga waxaa kaloo row geynaynaa accountka ayaan row geynaynaa accountka waxaa saddexda column inuu asaga ugu dambeeyaan rabnaa marka waxaad leedahay move to end sidoo kaleeto waxaan geynaynaa values debitkaada iska hubi inuu sum kuu sameeyey haddii uusan sum kuu sameynin waad ku kor dhufanaysaa kadibna waxaad tegaysaa value field setting
kadibna waxaad hubinaysaa inaad ku tahay sum inay meesha ku tahay hadday county ka tahay ama average ka tahay ama maximum ka tahay iska hubi sum kasoo dhigo isku dardaraan sidoo kaleeto waxaynu keenaynaa isla value-ga creditka ayaynu keenaynaa creditka ayaa la rabaa inuu ahaado midka labadooda inuu dambeeyo debit credit sidaasa saxa hadda waxaynu haysanaa accounts description and debit iyo credit waxaynu sameynaynaa markaa inaynu tablekeena ka dhigno table format tablekaada meel kamid a dooro kadibna waxaad tegaysaa design kadibna waxaad tegaysaa report layout kadibna waxaad tegaysaa show in tabular form ayaad u ekeysiinaysaa xogtaadii kadib haddana waxaad tegaysaa subtotals waxaad leedahay do not show subtotals wuxuu kaa qarinayaa subtotalskan meel kastoo ku sameeyay drawing subtotalkeeda kan uu ku sameynayo kaa qarinaya subtotalskaasaad iska wada saaraysaa xogtaadii hadda way isku hagaagtay sidoo kaleeto waxaad tegaysaa blank rows waxaad leedahay remove blank line after each item hadii blankis ay kaga jiraan isna wuu kaa saaraya waxaa kaloo tegaysaa report layout waxaad tegaysaa repeat all item labels si xogtaada mid kasta sadar kasta uu kugu yeesho jadwal toosa kugu yeesho hadda waxaynu arkaynaa account kasta inuu yeelanayo descriptionkiisa iyo datekiisa si nadiif ah waxaa jira markii aad kala fogeysid columnskan maadaama wuxuu yahay pivot table automatic uu yahay haddana markii aad ku sameyso refresh table design refresh markaad dhahdo refresh all sameynayaa xogtii wixii aad kusoo darsay iyo wixii kale dhammaan uu haddii journalkaada wax kasoo bedesho ku sameynayaa inuu isbedelkii kusoo qaado sum of debit iyo sum of credit ayaa meesha noogu qoran si ay akoonnada noogu quruxsanaadaan debit iyo credit ayaan ku qoranaynaa halkaas aad ka tirtirto sum ofta space raaci interde sidoo kaleeto kana sidoo kale ku samee intaad ka tirtirto sum ofta space u samee sidaas hadda waxaa inoo muuqda xogteenii oo u sameysan qaab table ah oo nidaamsan waxaase naga maqan balance baa naga maqan balanceyada accountnada si aan u helno inaan u sameyno balance tablekaada meel kamid ah dooro kadibna waxaad tegaysaa pivot table analyze kadibna waxaad tegaysaa field item and sets halkaasaad ku dhufan waxaad tegaysaa calculated field ayaad ku dhufanaysaa kadibna halkaasaa kusoo baxaysa waxaad u bixinaysaa balance columnka aad rabto inaad kusoo darso magaciisa balance halkana waxaad ku qoraysaa balancegaas waxa aad rabto inuu noqdo equal bay kugu sameysan debit laga jaray insert field minus credit insert field add kadibna okay halkan waxaa noogu sameysmay wax loo yaqaano sum of balance ayada sidoo kaleeto sum ofta naga tir inooga dhig balance bas hadda xogteenii waxay noo leedahay balance limitationska meeshan ka jira waxaa weeye in account kasta uu debitkiisa iyo creditkiisa kala jarayo oo debitka uu ka jarayo creditka halka sida saxda la rabay
account-nada oo maaragtay debit balance-ga lana inuu debit balance-gooda noogu sameeyo, credit balance-ga lana credit balance-gooda noogu sameeyo. laakiin balance-gu waa isla balance-gii soo hari lahaa mar kasta. laakiin wuxuu sameynayaa isdaba mariyey account-nada credit balance-ga leh waxay u xoog badan yihiin oo tiradooda dee badan ay ku jirtaa credit-ka. marka waxaa la rabaa inay credit minus debit ay noqdaan laba column. marka ma sameynayno tanana waxaan u sameynaynaa balance-gan si amaanisada accounting form maahan nooga baxno oo noogu sameyno accounting form. right click ayaad ku kordhihi balance-ga, kadib waxaad tegeysaa value field setting, kadibna waxaad tegeysaa number format, kadibna waxaa soo dooranaysaa accounting formatkaasaa soo dooranaysaa. halkana waxaa ka dhigaysaa 0 decimal places, 0 decimal place baa ka dhigaysaa. calaamad dollar miyuu ka raacinin ama calaamad ledgerku iyo journalka labadaba calaamad male. kadibna waxaad leedahay okay. waxaad arkaysaa meel kastoo minus ahayd inuu inooga dhigay bracket. accounting-kana sidaas instead of plus minus wuxuu isticmaalaa bracketka. intaa hadda markaynu sameynay waxaynu aragnaa table kusan oo dhammaystiran oo inooga turjumaya waxaa loo yaqaano ledger, general ledger ku xidhan general journalkeena. account-ka korkiisa waxaad ku dhahdaa equal si account-nadaada ay kugu muuqdaan equal. kadibna account-nadaada midka u horeeya dooro, kadibna enter dheh, kadib qurxiso, weynee, bold ka dhig, taariikhna ka dhig. intaa markaad sameyso waxaad soo gashanaysaa insert aad ku maamusho table-kaada oo hadba account-ka aad rabto aad balance-giisa ku ogaato. insert markaa rabto inaad soo gelisid table-ka meel ka mid ah dooro, kadibna tag pivot table analyze, kadibna waxaad dhahdaa insert slicer, kadibna account-ka ka dhigo slicer-kaada waxa aad ku maaragtay ku fiirinayso. slicer-iska xaggan dhigo, kadibna fiiri halkan account payable haddaad rabto inaad balance-giisa ogaatid account payable baad leedahay. kor fiiri isla account-ku isla bedelayaa magaciisa. account payable labada transaction halka transaction baa dhacay marna lagu yeeshay 8,000 iyo 5,000 baan iska bixinay, 3,000 baa deynan lagu leeyahay. instead marka uu minus ka dhigay waxaa fiicnaan lahayd inuu halkaas balance oo nadiif ah noogu soo sheego. account receivable sidoo kale fiiri laba transaction baa dhacay, macaamiilaan 3,800 ku yeelanay, dadkii macaamiisha ahaa 3,800 way noo keeneen, waa zero balance. cashkiina fiiri in badan buu soo noqnoqday, isagana cashka ayna soo galay guud ahaantii wuxuu ahaa 43,800, cashka inaga baxayna 19,100, balance-geena waa 24,700. cashkaas wax kasta oo inaga baxay haddii aan u baahano inaan aragno si dhabeer baan u fiirin karnaa. cashkaas u sarreeya waa drawing of cash for personal use 2,000 ah, initial investment oo 25,000 ah, budgeted office supplies. arki kartaa cashkaada midka kaa baxay iyo midka ku soo galay, mid kasta sababka kugu soo galay iyo sababka uu kaaga baxay. drawing sidoo kale marba qofku lacag la baxay, drawing of cash for personal use sababta oo la baxay waa kaas 2,000. equipment hal mar ayadana soo gadanay 8,000 oo aqlabaa noo yaallo. account-kii aad u baahataba si dhib yar aad u fiirin kartaa. waxaan sii raacinaynaa in account kasta aan ogaano
sub account cash muxuu yahay ma current asset ba ma current liability ba ma fixed asset ba muxuu yahay cash waxaa leedahay equal we look up value waa kan comma table array-gayga aan rabo inuu ii soo bandhigo chart of account-gayga waxaan rabaa individual accounts-kan inuu ku raadiyo sub accounts-kan oo haddii cash uu meesha soo baxo inuu ii sheego inay tahay current asset document ay soo baxdo inuu ii sheego inay tahay fixed asset haddii not payable soo baxdo inuu ii sheego inay tahay long term liability table-kan aan wada dooranayaa gebi ahaantiisba kadibna waxaan leeyahay comma wuxuu ii weydiinayaa column index column-ka aragta in la raadiyo kee weeye number 2 waa column-kan 2 weeye comma haddii la waayo exact match haddii la waayo false igu qor lama hayo ama kuma jiro waan ku qoran karnaa meeshaas iyada saan horey u soo baranay hit enter kan ayadana qurxi inoo qurxi 16 ka dhig hadda haddaynu fiirino account payable wuxuu ku leeyahay account payable waa cash inaynu ka fogeynaa fiicnaan lahayd waa cash account payable waa current liability taasuu kuu sheegayaa cash haddaynu dhahno cash waa current asset advertising expense haddaan dhahno advertising expense waa expense wey drawing haddaan dhahno waa honest drawing document haddaan dhahno waa fixed asset halkaas waxaad ku arkaysaa tablekaadii oo aad si dhib yar u fiirsan karto balansiga kugu jiro account kasta adiga oo aan xisaabinin isku dardarin kala jarin aanu qaadanin aad si dhib yar u ogaan karto account kasta maxaa kugu jira soo ku xidhan general journalkaada oo haddii halkan aynu kusoo darno transactionna kale automatically refresh maan leenahay xogtaadii si dhammaystiran ayay halkan kaaga soo baxaysa waxaan isleeyahay wax kaloo hadda inoo dhiman ma jiro in aan qurxino tablekeenna design tablekaada nooca rabta ka dhigo noocaas ka dhigo nooca ka dhigo nooca ka dhigo nooca ka dhigo noocii markaas adiga aad jeceshahay ka dhigo tablekaada panel rows panel columns haddaad rabto saas ka dhigo nooca rabto u qurxiso tablekaada qof kasta iyo dalkiisa iyo jaceylkiis hadhowna accountnadaas si dhib yar u maamulo adigoon in badan isdhibin this is how to do a pivot table from general journal or how to make a general ledger from general journal filayaa casharka in si dhow oo dhib yar loo fahmay waxaana rajaynayaa qof kasta uu soo sameeyo oo berri xiisadaan isku imaanayno ay noqoto checking iyo inaynu samayno trial balance ku xidhan ledgerkeenna aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada